ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله walaalayaal, ilaahay baan u mahadnaqaynaa inoo ogolaaday inaan dhagaheena u soo raaricno maaragtaanay maqalka ilaahay hadalkiisa iyo hadalka nebigeena laynoo sheegayo calayhi salaatu wasalaam. dhegta wax maqlaysa laba mid unbay noqotaa: dheg laab u daloosha iyo dheg leydh u daloosha. dheg maqasha, taas midigtana ka maqashata bidixdana ka sii daysa. dhegna waxa weeyaan waa dheg laabta u daloosha. waa tanuu ilaahay uu yidhi: wataciyahaa udunun waaciya. waxaa waana qaadanaysa oo naseexada kuwaan toobaysatii ilaahay casa wajalla ugu talagalay unbaa kuwaan toobaysa. marka maqalkeena maqalkii laabta u daloolay allaha ka dhigo. aamiin dhahaada insha allah. maqalkii qalbiga ku daloolay allaha ka dhigo. waxaan u malaynayaa waa maalintii saddexaad ee walaalaheen ay noogu talagaleen in laynagala hadlo diin oo diin aan maqallo. dad badan baa khayrka inay maqlaan aanan karaynin, walaakiin ilaahay casa wajalla inteennan buu inoo qadaray inaan hadalkaa dhagaysanno, iyo dad badanoo iyakuna aalaadkan iyakuna ka daawanaya ama ka dhagaysanaya. diinka hadalkeegu zamankan uu badan yahay, dhagaysigeeguna uu badan yahay, laakiin fahmigii baa inaga maqan. laysa alcilmu maa xufid wa inama alcilmu maa nafac. cilmigu inta la weelayo ee la xifdiya maaha. cilmi waxaa la yidhaahdaa waa cilmiga qofka isaga anfacee waxtaraa cilmi la yidhaahdaa. waa farqiga innaka muslimiinta zamankeennan joogta iyo zamankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam, ama quruuntii la odhan jiray quruun almufadala, qarniyadii wanaagsanaa. farqiga inoo dhexeeya waa intaas. innakuna waan maqlaynaa, laakiin ku dhaqankii baa inaga maqan. caaisha radia allaahu canha waxay tidhi, cahdigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam, waxyigu markuu nabigeenna uu ku soo dego dushiisa, intaa aan nebiga aan ka maqalay, markii aan la imanno, hadday macruuf tahayna aan la imanno, hadday munkar ay tahayna aan ka joogsanno, umana gudbi jirin bay tiri markaa in kale inaan qaadanno. 10 aayadood hadday soo degtay buu yidhi cabdulaahi binu mascuud, 10kaa markaan maqallo, waxay wanaageenna amrayaanna aan la imanno, waxay xumaanaya munkaray naga reebayaanna aan ka reebtoonaanno, ayaan inta kalena markaa u gudbi jirnay bay dhahdeen asxaabtu. allah raalli ka noqdee. hadba inta ummaddu ay diinta shareecadda qaadi karaysa ayaa loo soo dejinayay. marka innaka zamankeennan maqalku waa badan yahay, ka hadalka diinta laga hadlaya waa fara badan yahay, laakiin isbeddelku muu yar yahay mise wuu badan yahay? ya waa calaamatu su-aale, bal ka jawaaba. waa yar yahay soo maaha? ka hadalku waa badan yahay oo wadaadadu way xiiqeen. maqalkuna ma yaro, dad fara badan way maqlaanoo way dhegaystaan. xataa kuwa maalin qayilaya baan arko muxaadara ay u daaran tahay, way qayilayaan, sigaarna way cabbayaan, jaadkiina way cunayaan, muxaadara u daaran. markaasay yidhaahdeen, markaasaan ku yidhi maasha allah, asalaamu calaykum. calaykum bal warrama, waa khayr.
markaas adiga sheekh kalaam ku taageernaa bay igu yiraahdeen sheekh Mustafa markaa sheegeen markaas aan ku yiri waad fiican tihiin sibay dhaantaayo heesii qaaciga dhageysanayeen sidana dhaanta laakiin waxa culimadu ay u hadlayaan ee leeyni baraarujinayo waa isbedel inaad keentaan baa la doonayaa isbedel ummaddu hadday iyadu isbedisho xaaladda adagay ku jirtana ilaahay isaga ka saari markaa inna allaha laa yughayyiru maa biqawmin xataa yughayyiru maa bianfusihim ummad sida ay tahay ilaahay kama dooriyo hadday nicmada haysata nicmada ilaahay kama qaado hadday barwaaqo ku sugan tahayna barwaaqada ilaahay kama qaado ilaa iyakoo dunuubta ay geysteen nicmada iskaga zuuliyo iskaga qaada mooyaane dad badan baa laga yaabaa inay yidhaahdaan ilaahay baa sida noo gartay may ilaahay ha eedayn wixii wanaaga ilaahay u nisbee wixii sharcina adiga naftaada u nisbee wixii wanaaga eed la kulantay ilaahay baa ku siiyey haddaad nabad hesha nabadda ilaahay baa ku siiyey haddaad barwaaqo haysata barwaaqada ilaahay baa ku siiyey haddaad caafimaad haysata caafimaadka ilaahay baa ku siiyey wixii barwaaqo iyo badhaadhaa ilaahay baa loo nisbeeyaa wixii shar noloshaada aad ka aragtana naftaada u nisbee waa camalkaagii wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfuu can kaiir baa ilaahay yidhi waxaad masiibo aad la kulantaan ee adduunka intaad joogtaan idin soo mara baa ilaahayna leeyahay waa waxay gacmihiinnu aad ku geysateen baa ilaahay yidhi weliba sidaasaan inta badan waan cafinaa baa ilaahay yidhi ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وحمانت الدنيا دباتك دعايا أودن فساد يا ظلمي يا دجال يا أبار يا عولاد يا عبسي ما هو وحي حيوانك كلي أي كسبدين معها إنك كسبني ووحي إنك أنجيسني ووحي من آدمك أي كسبدين ويانا لذلك قفك مؤمنك مركو الدنيا كدنتو كبحو والله مرغودا يا مرغودا خلقك إلهي أبوري أو دنبا كان حد مشهد قفك مؤمنك الليلي وما حي وقلنا حيان وكم مرغونا ما حي وقم مرغونا يان بالليل وحي وقم مرغونا يان ما دام مؤمن يهي وقفك إلهي عابدا يي وعمل ونكسنا وكشقينا يي وصلاة كودا دالا يي ودينتي سكودك ما يي عمل كا ونكسن وسمينا يا سمد خير بكسو دادعنا يي إيمانك يتقوى الدولة هذا سمد بركة كينيسي لذلك دمشق مؤمنك مخلوق ودن باكن نحو كم مرغودا مستريح ومستراح مد والله راحيسن بالليدي midna waa looga raaxeeyay nolosha adduunka isaga qofka iimaanka la markuu dhimanayo tacabkii adduunyada waa looga raaxeeyay gaalku marka uu dhimanayo ama mujrimku markuu dhintana isagana makhluuqi oo dhan baa ka raaxaysto waa laga raaxaystay fircoon markii ilaahay uu ka warramaya halaagiisa wakiilaha famaa bakat calayhim as-samaa'u wal-ard wamaa kaanuu mundariin baa ilaahay yidhi fircoon iyo ciidankiisa samadana loogama ooyin dhulkana loogama ooyin waayo maadaamuu nin gaala ahaayo tuqyaan badnaayo kibir badnaayo qooq badnaa camalka xun uu samaynayay adduunyada dhib buu ku hayay marka dhimashadiisii cidna kama ooyin baa ilaahay yidhi amaa muuminka waa loo ooyaa qofka muuminka waa loo ooyaa sidaa darteed dunuubta dadku ay samaynayaan baa dhibaatada ay ku sugan yihiinna soo jiidaysoo keenaysa laa taqacu almusiibatu ilaa bidanbin walaa turfacu ilaa bitawba bay culimmadu yidhaahdeen musiibo ummad kuma dhacdo ilaa dembi iyaku ay galabsadeen bay musiibadaasi ay ku dhacday ummad ilaahay balaayo haysata kama faydin ilaa toobad baa ilaahay ummadda kaga faydaa toobad inay toobad keenaan التوبة ومحي إنه قفك إلهي أصو نقضه ذنبك كجري إنه كسر دحبحه
inuu ilaahay u soo noqdo dambi dhaaf ilaahay uu weydiisto markuu qofku ilaahay u soo noqdo toobad keeno ayaa qofka ilaahay noloshiisa u hagaajinaya imaam ash-shaafici rahimahullah ayaa arkay nin meel fadhiyo aad u murugaysan markaa buu u tago uu la fadhiistay ninkii uu waraystay markaa wuxuu yidhi waa maxay dhibaatada adiga ku haysata murug baa kaa muuqatee masiiba igu dhacday buuhi nin masiiba ku dhacday baan ahay buuhi oon dhibsanahay wuxuu yidhi dadkaba masiibadu way ku dhacdee waa maxay ta adiga kuu gaarkii wuxuu yidhi aniga tu gaara igu dhacdo haysato dadka kale waan ka duwanahay buu yidhi masiibada maxay tahay adiga kuu gaarkii wuxuu yidhi dadkii iyo aniga ayaa kala baxnay buu yidhi oo cid aan la heshiisahay ma jirto hooyaday aabbahay waan kala dhaqaaqnay reerkaygii oo ilmahayga waan kala dhaqaaqnay jaarkaygii waa kala dhaqaaqnay qaraabadaydii waan kala dhaqaaqnay cid aan la heshiisahay haba yaraatee ma jirta buu ku yidhi marka culammadu firaaso wax la yidhaah bay lahaayeen ittaquu firaasata almu'min fa innahu yaraa binuuri illaahi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minku wuxuu leeyahay nuur qalbigiisa uu wax ku arkuu leeyahe iska ilaaliya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam imaamkii wuxuu gartay ninkani in xagga ilaahay ee isaga xidhiidh uu ka go'an yahay buu gartay hal su'aalu markaa weydiiyey uu mashkiladiisii oo dhan ku xalliyey waa maxay su'aashaasi wuxuu ku yidhi waryaa i dhegayso 100 qof inaad hal mar raalli gelisaa iyo qof keliya inaad raalli gelisaa bal kala dooro kala sheeg markaasuu ku yidhi dee midka keliya ila fudud waxaa markaa baa lagu yidhi waliba midka keliya hadduu adiga raalli kaa noqdo ood isaga raalli gelisid 100ka kale isagaa kaa raalli gelin baa lagu yidhi markaasuu midkaasi waa midkee buu yidhi markaasuu waa allah weeyaan markaasuu ninkii wuxuu yidhi sheekh wallaahi meesha leega haystaad ii sheegtay buu ku yidhi nolosha aan fahmi lahaa iyo cidhiidhiga aan dareemayey iyo muqaatacada dadku ay igooyeen oo dhan waxa u sababa waad ii tilmaamtee aniga iyo rabbigay xidhiidhkii naga dhexeeyey baa meesha jirin buu yidhi jazaaka allaha khayr buuhi marka halkii buu ninka ku toobad keenay haddaan doonayna inaan ka baxno dulliga iyo ciriiriga iyo dawarsiga waad ogtihiin dadkeennu dawarsi bay ku jiraan maanta soomaali haddaan nahay dad adiga dadnimadaada kaa hooseeya maanta wax ku yeedhinaya oo ku maamulaya oo ku talinaya waana min calaamaati saaca nabigeennaa sheegay sala allahu calayhi wasalam إذا تخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأقصى أباه وأدنى صديقه وكان زعيم القوم أرذلهم وساد القبيلة فاسقهم إلى آخر الحديث شن يتبخص لضب نبي حديثك أو كشيء ويرى أمضي شن يتبنك على ممركة كأركتان balaayada ummadayda ku dhacday ogaada buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam in yar baan ka taaban inkastoo wakhtigu nagu kooban yahay waxau nabigu yidhi duwal waxaa la yidhaahdaa waa hantida guud ee ummaddu ay leedahay dad gaara markay danahooga u isticmaalaan kii ammaano loo dhiibtayna ammaanada dad u dhiibtay inuu markaa haniimo u timid intuu iska arko iska isticmaalo kii sakada dhiibayeyna sida dayn lagu leeyahay markuu sakada u dhiibo waxaan diinahayna dadku markay bartaan waxa uu nebigu sheegu yidhi iyo marka uu ninku haweenaydiisa u adeeco hooyadiisii dhashayna uu iska dheerayu caaq ku noqdo waalidinkaar uu ku noqdo xaaskiisana uu u dhaga nuglaan hadalkeyga iyo amarkeyga hooyadiisii dhashayna maaragtaana idhaaf buu odhanayaa aabbihiisii dhalena uu iska dheerayn buu nebigu yidhi saaxiibkiisana uu soo dhowayn wa kaana zaciima alqowmi ardaluhum qowm walba markuu hoggaanka u qabto kooga ugu liita buu nebigu yidhi ugu liita وساد القبيلة فاسقهم قبيل قوم ودتك أفكل يكون الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إلهي بقرآن كأنه يقول شيء قوم معناه قوم معناه وحويان ودتك اللغة كل يكون الله وقوم قوم والبمركوه قام يبو نبي يقول ليتا وكان وساد القبيلة فاسقهم قبيل كانوا ويركي ويان وجفدي هوسي ayakuna markay talada u dhiibtaan
kooga ilaahay ka fog ee bilaa cibaadada ee bilaa taqwada waxaasoo dhan buu nebigu sheegay inoo tiriyey waa min calaamaati saaca buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. ummad cidhiidhiga iyo dulliga iyo dawarsi kama baxayso ilaa ilaahay u soo noqoto mooyaane. camalkeennaan badilaynaa, nolosheenna ilaahay isagaa badili markaas. waa cuquubo caaba muslimiinta o dhan haysata maanta, cuquubo caama weeyaan oo muslimiinta caam ahaan oo dhan ku dhacdo ku habsatay markii kitaabka ilaahay jalla wacala laga tegay ee sunnadii nebi maxamedna laga tegay ayaa cuquubadaasi nagu dhacday maanta. waqaala arasuulu yaa rabbi ina qawmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura. waqaala arasuulu yaa rabbi, nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam odhahduu nebi maxamed uu yidhi baa ilaahay noogu sheegay fii suurati alfurqaan, ina qawmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura. yaa rabbi, qoomkaygii waa reerkii nebi maxamed uu ka dhashay weeyaan, qoomkiisu waa carab, waxay ka yeesheen kitaabka ilaahay jees-jees. dhaqankiisii bay ka hijroodeen, barashadiisii bay ka hijroodeen, isku xukunkiisii bay ka hijroodeen, ka shaqayntiisii bay ka hijroodeen. kii qur-aanka baranayana waa wad-aad bay yidhaahdeen. macallinkii ilmaha qur-aanka u dhigayeyna waxaa lagu yidhi macallin, ciyaalka maxaad bartaa adugu? qur-aan yar uunbaad bartaaye. waa hooyo ardaygii markuu bisha lacagtii uu dhiibi waayey madrasadda ayuu macallinkii dhowr jeer buu celiyey. markaasaa islaantii aad u cadhaysan baa soo qabatay ilmahayga gacantoo u timid ee macallinkii. macallin, ilmaha yar waad soo celcelisay, maxaa u soo celcelinaysaa? maxaa kaa qaldan? markaas waxba igama qaldano, lacagta ha bixiyo. meeshan aan ku jira waa kira weeyaan, laydhkani waa lacag weeyaan, macallinkani waa dad